Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Khiyaarteyda sharafta leh waan islaamay meel walba caalamka ka joogtaan. Waa walaashiin Ifraax. Janaalka daawanaysiina waa Ifraax janaal. Insha Allah waxaan rajeynaa inaa caafimaad qabtaan meel walba aad joogtaan. Ilaahay caafimaadka idin siyaadiyo. Inta xanuunsan Ilaahay caafimaad ha siiyo. Maanta waxaan jeclaystay inaan ila wadaago sida qolka fadhiga aan u hagaajinayo. Sida arkaysaan qolka fadhiga saddex yaala barkimihii miisku toosno meel kasto maadaama markasta isticmaalno qolka fadhiga aan joogno oo qolka fadhiga inuu yahay meesha kaliya aan ku kulano family ku wada fariisan karaan filin aan ku fiirsanaa baby-gayga yariiska qolkan ayaa inta badan ku hayaa marka hadda wuu hurdaa ani inta hurdaya aan ka faa'iideystaa oo waa dareemi karteen baby-gayga 4 bilood oo jira waa maasha Allah wiil yariis marka markuu hurdaya ka faa'iideysta guriga hagaajina hadda marka uu hurdaya inta badan ani hoosh waxaa jeclaa inaan qabto habeenkii markii xilli ilmaha cunuga uu hurdo iska hagaajiya si subaxda marka uu soo kaco oo hool dhan iyo aalin guriga iska nadiifiyo qolka fadhiga iska nadiifiyo hool dhan aan ku soo kicinin sidaas aan jeclahay marka qolka jikada meel walba maasha Allah habeenkii aan jeclaa inaan hoosh dhan iska dhameeyo oo inkastoo wax badan aan aalin marka saas aan jeclaa inaan sameeyo hadda waxaa soo qaatay iskoobo oo iskoobahan aan rabaa inaan xoogaa busta iyo kaga qaadiyo waxyaabaha yariiska roga uu leeyahay waxaa jeclaa rabay inaan soo qaato damso garaha oo ama saa u taqaaniin hubirka marka hadda soo qaadan lahaa cunuga ayaa iga soo kacaya marka waxaa rabaa inaan ka faa'iideysto inta uu iga hurdayo aan rabaa inaan hawsheeda dhameysto sidaas ayaan kusoo wadayaa biidnillaahi kariim marka asxaabi hadda waxaa soo qaatay ama busto camal waaye xilliyada qabowaadka saaid aan u isticmaalnaa dhaxda ayaan ka dhigayaa fadhiga si qofka markuu u imaado oo u baahanin oo meel kale ka raadinayso waxay noqonaysaa fudeed si aan markaa subaxdii soo kacno isku hurjinaa xilliyada qabow dareemeyno inkastoo hadda winterka uu bilaabanayo marka sidaas ayaa usoo sameeyay waxaan rajeynayaa inaan video-gan ka heli doontaan haddii aad ka heshaan please iga ilaawin inaad subscribe like iyo comment intaba ay ii reebtid dhiirigelin ay ii tahay like waxay iga caawinaa in muuqaalkayga dad badan uu gaaro commentigana dhiirigelin ay ii tahay marka haddii aad wax su'aale aad qabtiin ama waxyaabo aad u baahan tihiin inaan ila wadaago waa ii soo diri kartaan insha Allah anina wixii tabarteyda awoodo waan ila faa'iideyn doonaa insha Allah marka jazakumullah khair marka asxaabteyda qaaliga sidaan ayaa sameeyay noocyo badan jiraan oo qaab loo sameysan karo barkimaha oo dhigi kartid oo fadhiga marba waa la bedeli karaa oo si kasta aad disaan u sameyn kartaa marka barkimahan waxaa kasoo iibiyay Rusta meel kasta ayaa ka heli kartaan IKEA xataa inuu yaalo ayaan filaa sidaas ayaan u sameynay barkintan yariista iyo go'a isku marka waxaa rabaa inaan isku maajgareeyo maasha Allah tabaarakallah khiyaarey sidan ayaa kasoo dhigay ugu dambeyntii insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan sabuuradaas oo magaca Allah ay ku qoran tahay sidaan u sameeyay waxaa ka heli kartaan YouTube channel-kayga ayaan soo geliyay
iyadoo dhammaystiran halkaas ayaa ka daawan kartaan. Insha Allah alaabo badan ayaan dalbaday oo aan wali sugayaa haddii ay yimaadaan oo qolka fadhiga aan rabo inaan kaga bedelo waxyaabo badan. Insha Allah marka ay yimaadaan ayaan idin la soo wadaagi doonaa.